markaynu dowladda dhexeysno inaynu dib u amaqaadno oo dowlisno waa ciidan Soomaaliyeed ciidankii Soomaaliyeed oo koran waxay tahay dalka uu ku fadhiyaa waa joogaa tababarna waa leeyahay waxaa loo baahan yahay in hawshii qaran oo ay hore u qaban jireen la isugu keenay oo ciidanka runtii nidaam iyo tayada cusub iyo nidaam loo sameeyo waxaa loo baahan yahay ciidan military booliisle ciidan kale loo baahan yahay in dalka la dhiso waxaa kaloo loo baahan yahay anigu sida xaaladda Soomaaliya ku sugan tahay Soomaaliya waa ka joogay mudada Soomaaliya fursad weyn ay tahay maanta inaan fadhi isku aragno marka hore waxaan isku arki jirnay socod degdeg ah anaana codsaday kulankan xagga u baxa anaana codsaday kulankan waxuna ka dhashay booqashooyinkii aan sameynayay fikradii iga soo baxday naqad inaan u baahannahay inaan xoojino dhismaha ciidanka dawladdu waxay qaadatay sida aad wada ogtihiinba fadlan siyaasad ah in la xoojiyo dhismaha ciidanka oo ugu horeeyo ciidanka militariga waan kugu hambalyeynaa marka hore guulaha isdaba jooga ah ee magaalada Muqdisho iyo banaankeedaba laga gaaray waa guul weyn oo ciidanka qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka xoogga ay soo hooyeen shaki kuma jiro ciidamada kalena qayb ay ka qaateen booliska iyo nabad sugidduba laakiin culayska ugu weyn waxa qaaday ciidanka militariga sidaan isu wada sheegnay dalkan waxa uu burburay maalintii ciidanka xoogga uu burburay mana dhismi karo ilaa ciidanka xoogga uu ka dhismo maanta fursad waxaan u haysanaa inaan ciidamada xoogga dhisno waxaan ugu haysanaa marka hore waxaa nala jooga walaalaheen Emerson oo fursad noo siinaya ciidamada inaan dhisno nagu soo kordhinaya khibradooda waxaa fursad ah dawladdu inay u soo jeedo dhismaha ciidanka iyo tayayntiisa waxaa fursad ah shacabka Soomaaliyeed inay diyaar u yihiin garsoorka dawlad dhisidda iyo dawlad wanaagga waxaan dib u habeyn ku sameyn doonaa haddii alla yiraahdo xoojinna doonaa hay'adaha amniga qaranka si ay awood buuxda ugu yeeshaan hanashada ammaanka dadka iyo dalka muddo gaaban gudaheed waxaan dhisayaa ciidan tayaysan oo leh tiro ku filan oo ay ku gutaan waajibaadkiisa qaran meena tiro koob ciidanka aan haysano oo howlgali kara ciidanka aan howlgali karin howlgab baan ka dhigaynaa xuquuqdoodana waa siinaynaa waxaan siinaynaa tababar ciidanka tababarka kii la yaqaanay ma aha waxaan siinaynaa tababar wadaniyad yaan siinaynaa ciidamadeena waa dagaalyahano waa yaqaanaan sida loo dagaalo laakiin waa in la siiyo mabaadi'da ay ku dagaal lahaayeen waxaan ognahay shabaab inay ku dagaalaan diin aan sax ahayn ay gowracayaan qof ashahaadanaya iyagoo Allahu akbar leh saas darteed ciidamadeenu waa inaan siino tababar oo joogto ah oo la dareensiinayo wadannimada iyo waxay u dhimanayaan waa inaan siino daryeel ciidan aan daryeel lahayn ma dagaali karo oo calooshiis maran tahay waa inaan mushaar fiican siino waa inaan caafimaad siino haddii uu dhintana caruurtiis inaan ka warqabno agabkoodu waa inuu u dhan yahay qalab kasta waa inay haystaan oo ninka ciidanka uu kaga hortagi karo kuwa inkaarta Ilaahay ku riday markaas waxaan ka rabnaa anshax inay la yimaadaan iyo discipline kii ku takrifala awoodiis ama shacabka dhibaateeya ama ciidanka la shaqeeya dhibaateeya haddii khasbiyan wuxuu fees gareynayaa ama wajahayaa sharcigu wajahayaa kii wax dilayna waa dilaynaa kii dambi galana waa laga goonayaa dambiga moralkooda inaan kor u kicino oo annagoo la shaqeynayna oo garab taagan oo caanaha iyo biyaha ka daba wadna inaan moralkooda kor u kicino si ay uga hortagaan cadawgan u soo maxaan ku raahdaa xaytay inay Soomaaliya u diidaan nabad iyo nolol u diidaan tan ugu muhiimsan waxa weeye command inay leeyihiin taliye fiican inay leeyihiin kuwa dagaal galaya taliyahaasi uu yaqaan waxa uu dagaal galayo
wax laga rabo shuruucdiisa waa in isaga naftiisa la siiyo tababar joogto ah maxaa yeelay haddii uusan lahayn tababarku u baahan yahay hadda ciidanku iyo askartu waa saraakiishooda weeye inaan isku dhafna ciidanka waa laga wada hadlaa laakiin wax adag ma aha kow ka ah arrimaha amniga maxaa yeelay amisom hadda waxay joogtaa 10 sano saan ognahay wixiina faray kama qodna oo macnaa runtii waxaa loo baahan yahay in la dhiso ciidan Soomaaliyeed oo hanta difaaca dalka hanta amisomna bacdama ay wax badan dalka la qabteen waqtigii la joogo oo iyaguna ay sheegeen Soomaaliya ka baxayaan 2018 iyo 2019 inaan isu diyaarino inaan anagu aan ciidankeena dhisan karno oo isku dhafan aan diyaar u noqon karno inaan difaacano qoladan horarka oo dhibka Soomaaliya ku hayana ay ciidamadeenu ay diyaar u noqdaan inay ku soo celiyaan Soomaaliya amaan ku soo celiyaan